warbaahinta adduunka, majlisyada siyaasadda, fagaarayaasha falanqaynta iyo fadhiyada mujtamaca caadiga ah waxaa si weyn looga hadalhayaa hogaamiyihii sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo la shaaciyay inuu geeriyooday. telefishinka dawladda, wakaaladaha rasmiga ah iyo warbaahinta caalamiga ah ee waaweyn ayaa xaqiijiyay xaaladiisa saacada uun kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay shaaciyeen inuu ku dhintay bartilmaameed istaraatiiji ah oo lagu qaaday goor hore oo Sabtidii ah. haddaba kumuu ahaa Ayatollah Ali Khamenei yaa bedelaya nidaamka Iran ma wiiqmi doonaa mise wuu sii adkaysan doonaa? maxay tani uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe, galbeedka iyo dunida? su'aalahan iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaysa tabinteena Tafaftir Media ee soo dhawaada. markale kulan wanaagsan. haddii ay tahay markaagii ugu horeysay ee aad daawanayso Tafaftir Media, waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran aan toos u abaarno tabinteena annaga oo ku bilaabanayna guud marka sooyaalka Ayatollah Ali Khamenei. Ali Hussein Khamenei wuxuu ku dhashay magaalada Mashhad sanadkii 1939 waxa uuna ka soo jeeday qoys diimeed. waxbarashadiisa sare waxa uu ku qaatay magaalada Qom, halkaas oo uu kaga mid noqday ardaydii uu waxbaray Ruuxullah Khomeini, hogaamiyihii talada uga horeeyay ee aas-aasay kacaanka Iran 1979. waxa uu markaas kadib noqday madaxweyne intii u dhaxaysay 1981 ilaa 1989 laga soo bilaabo 1989 ilaa 2000 oo ay u dambeysay Sabtidii shalay waxa uu ahaa hogaamiyaha ugu sareeya talada wadanka. waxa uu gacanta ku hayay ciidamada, siyaasadda dibadda, barnaamijka nukliyeerka iyo hay'adaha amniga muddo ka badan 35 sano. go'aankiisa ayaa ahaa mid saameyn ku leh gobolka iyo adduunka. falsafadiisa siyaasadeed waxay ku dhisnayd mabda'a iska caabinta. galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxa uu arkayay cadow istaraatiiji ah. Israa'iil si cad ayuu uga soo horjeeday. intii uu talada hayay, Iran waxay taageertay xulafo military iyo siyaasadeed oo gobolka ah. waxay horumarisay barnaamijka nukliyeerka, waxay kor u qaaday saameynta caalamiga ah. laakiin arrimahan waxay sidoo kale keeneen cunaqabatayn dhaqaale, cadaadis maxalli ah iyo xayiraad caalami ah. arrinta ugu muhiimsan, Iran ma aha nidaam ku dhisan hal shakhsi. waa nidaam leh hay'ado diimeed, hay'ado sharci, qaab awood oo lakabyo badan leh iyo ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo yaqaano Xarisu Thawra. waxay maamulaan awoodda military, waxay leeyihiin saameyn dhaqaale, waxayna ugu sareeyaan go'aan gaarayaasha siyaasadda. taasi waxay muujinaysaa kala guurka hogaamiyaha ma burburinaya nidaamka, balse waxa uu u badan yahay inuu xoojiyo isku duubnidiisa. yay tahay cidda bedeli karta doorashada hoggaanka sare ee Iran? waxaa leh golaha khubarada, laakiin xaqiiqada siyaasadeed waxay muujinaysaa in go'aanka dhabta ah uu ku xirnaan doono isku dheelitirka awoodda gudaha. dadka ugu cadcadna waxaa ka mid ah Mujtaba Khamenei, wiilka hogaamiyaha geeriyooday. waxa uu leeyahay saameyn maxalli ah, isaga oo sidoo kale xiriir dawla leh ciidamada ilaalada kacaanka ee loo yaqaano Xarisu Thawra. laakiin doorashadiisa waxay horseedi kartaa muran ku saabsan in xukunka isu bedelo dhaxaltooyo. dhinaca kalena waxaa kaalinta labaad ku jira Ali Larijani, siyaasi khibrad leh, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka wadanka, madaxii wadaxaajoodka nukliyeerka iyo nin dhexdhexaad lamood ah oo go'aamadiisa ku saleeya xaqiiqada iyo danta dhabta ah ee dalkiisa. magaca saddexaad ayaa noqonaya Sadiq Larijani oo ah walaalka ka yar Ali. waa xubin ka tirsan golaha ilaalinta dastuurka. waa caalim leh miisaaniyad diimeed iyo mid sharci. saddexdaas midkood ayaa loo badinayaa inuu ku soo baxo hogaaminta wadanka, iyadoo ay sidoo kale jiri karaan magacyo kale oo aan haatan shaacsanayn. Iran haddii aan eegno waa awood goboleed oo saameyn ku leh Lubnaan, Ciraaq, Suuriya iyo Yemen. isbedel kasta oo ka dhaca wadanka wuxuu si toos ah u saameynayaa amniga bariga dhexe. dhanka Israa'iil haddii laga eego, waxay u aragtaa fursad haddii arrimaha maxalliga ah ee Iran ay ku mashquulaan hoggaanka cusub. waxaase khatar ay u tahay marka hoggaanka cusub uu muujiyo awood. galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay arrintan iyana u arki karaan fursad wadahadal nukliyeer iyo yareynta cunaqabataynta, ama dhinaca kale khatar haddii barnaamijka nukliyeerka la dardar geliyo, xiisadda militarina ay sii cusboonaato. mustaqbalka wadankana 3 jiho ayaa suuragal ka ah. waa ta koowaad ee sii socoshada nidaamka inuu u jiro sidii hore ama si kasii xoog badan, inuu yeesho adkaysi siyaasadeed oo awoodda sii kordhiya, iyo furitaan xadidan haddii siyaasiyiin dhexdhexaad ah ay saameynta yeeshaan. falanqaynta guud ayaa si ah kala guurka hogaaminta ma burburinaya nidaamka, laakiin waxay u badan tahay in ay sii xoogaysato isku dubnidiisa. geerida Ali Hussein Khamenei waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca siyaasadda bariga dhexe tan iyo 1979.
nidaamka Iran oo 35 sano ka hor la aasaasay ma aha mid ku tiirsan hal shakhsi sida aan hore u sheegnay waa hay'ado isku xiran awood leh isla markaana ay u degsan yihiin istaraatiijiyada gundheer su'aasha dhabta ah ayaa si ah yay tahay cidda qaadi doonta hogaaminta waddanka nidaam aan sahal ku burburi karin markasta oo isbedel dhaco caalamku wuxuu eegayaa gobolka waxa uu ka fakarayaa mustaqbalka bariga dhexe wuxuuna isweydiinayaa miyay hogaamiyaasha cusub ku dhaqmi doonaan hab ka adag awood iyo ilaalin nidaam sidii Ali Khamenei mise waxay la iman doonaan waji cusub oo isbedel keena mid kasta waa tallaabo go'aan ah oo saameyn ku leh malaayiin qof siyaasadda gobolka iyo jihada dunida inteeda kale adigana daawade maxay kula tahay qaybta faalada ee commenteska nagula wadaag ra'yigaaga saaxiibada la share garee muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayn dadka nagu xiranna nagu soo biir si aysan kuu seegin falanqaynta aan halkan ku soo gudbinno waa Abubakar Maxamed oo idin leh intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan